gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Somaliland Cabdirashiid Riiraac oo safar shaqo ugu maqnaa dalka dibadiisa oo galabta dalka dib ugu soo laabtay ayaa beeniyay waran maalmihii ugu dambeeyay soo ifbaxayay oo sheegaya inuu iscasilayo. Gudoomiye warar kale ayaguna waxay sheegayaan inaad iscasilayso oo bedelkeeda xukuumadda ku diyaarisay ama ay jiraan dhawaanahanba lacag la ururinayay oo ma jira warkaas. ما يورك حكم جيران لعقنا هدي أي لعقنا عدي سكوا عسيل ميزو حل قرن بانو هينا حل كقرن كي يلا عقد ويكلم ميزان وين ما أنت كوميشن بان هاي حل كاسة اللي داري مركا متشرتو اسمنا عسيليو وما نصعدو إن نسعسيلو لعقنا قفك بلا آذن كامي يبسن كرتو قفكو بلا آذن كا دي لعقنا يبين كرتو ولا ما أورن كرو مقرن يسمى مبدأ يقرن كيسة xilka uu hayo cidina adeer kama iibsan karto wax la anu ma garanayo sida loo qiimeeyo iyo sida loo maaragtay loogu sameeyo marka warkaas waa waxba kama jiraan. Gudoomiye Riiraac waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay cod la sheegay inuu isaga yahay oo baraha bulshada dhex wareegayay wuxuuna sheegay in teknoolajiyadu sababayso in wax badan oo been abuura la sameeyo. warkaas waa noqday waxba kama jiraan dadweynaha waa la sameeyaa komishineer hore laga sameeyay wasiirra laga sameeyay codkaas ma jiro warkaasuna waxay ila tahay waa un iska wax dee dhalinyaradu imika iska baratay iyo barnaamijyo yaryar oo dee iska jaban inta la samaysto codadka dadka iyo hadalka lagu sameeyo marka arrintan waxaan leeyahay waxba kama jiraan dee gamana suurowdo oo waxaan isleeyahay qof aadan garanayn inaad sidaa maaragtay dee maanta ma joogo position ama beelo Somaliland ama cid gaar ah ka maago ama xusbiya ka maago sababtoo ah anigu hadda siyaasadii waa ka baxay imika nin dhexdhexaada oo komishineer oo aan cidna ma garanaysaa darafna ahayn baan ahay marka yaa arrintaa waxba kama jiraan male komishineer kamida komishineeradii leedin wada dhaariyay ee sharciga maray oo ah xubintii komishanka doorashooyinka xisbiga uu cid u matalaysay way iscasilay xubintii wadani way maqan tahay miyaanay u ekaanaynin xubnihii mucaaradkuba haddii idinka maqan yihiin inaydan shaqo qaban karayn. Wallahi de wuxuu horta waxna waa siyaasad iyo xal qaranka u yaala waxna waxa weeyaan anaga xilkaanu haynaa komishanka anaga xil komishan baanu haynaa waa naloo dhaariyay shaqana diyaar baanu u nahay inaanu shaqaynana diyaar baanu u nahay xubintaa iscasisay runtii de waa ka xumaa iskumanaan ogeyn intii aan safar ku maqnaa bay ahayd isagoo xafiiska joogo oo shaqaynaya oo aan waxba xumayn baa ka tegey wax soo kordhayna haddeer iminkaan airportkii maraya war kama hayo. Ugu dambayntiina waxa uu sharaxaad dheer ka bixiyay ujeedada socdaalkiisii dibadda waxaana uu carabka ku adkeeyay inay ku hawlan yihiin dardargelinta howlaha komishanka doorashooyinka isagoona hoosta ka xariiqay in komishanku ku hawlan yahay inuu u sii shaqeeyo qaranka Somaliland. safar shaqo ahaa waxa weeyaan dee komishanku shaqooyin gudaha iyo mid dibadda uu leeyahay marka shaqo dibadda baan u baxnay wax badan baa noo soo qabsoomay tababaradii baa ugu horeeya oo aanu bisha saddexaad haddii alla ka dhigo u baxayno tababarkii waxa weeyaan aqoon isweydaarsi ama xirfadlayaal doorashooyinka oo si dhow noola shaqayn doona baanu iyagana la soo heshiinay waxaanu kale oo dee iyagana heshiis la soo galay goobjoogayaasha waqtiga doorashooyinka yimaada oo ma garanaysaa inagala qayb geli doono doorashooyinkeena ilaalin doona waxaanu kaloo iyadana u baxnay ahayd in innagan bahalkan iriska la yidhaaha indhaha lagu eego baynu lahayn intii hore wuxuu ahaa in qofku inaanu laba kaadh qaadan oo kaadh qura qaato oo lagu ilaaliyo laakiin maynu lahayn qaybta doorashada lagu ilaaliyo qofku markuu codaynayo indhaha loo saarayo marka taana waanu runtii ka howlgallay oo iyadana meel dhow bay noo maraysaa inaanu hello mashiino iyo qalab qof kasta oo codaynaya macluumaadkiisa lagu helo oo goob walba la dhigo dee markaa hawl wanaagsan baa noo soo qabsoontay bisha saddexaad baana hawluhu noo bilaabmayaan haddii alla ka dhigo markaa safar wanaagsan buu ahaa khayr qaba dee qarankana wax weyn u soo kordhinaya insha allah. Maxamuud Cabdiraxmaan Xirsi Maxamuud Fantastic telefishinka caalamiga ee Sahan magaalada Hargeysa.